waxaan inii sheegay qisad kale oo dhacday oo xaqiiqiya iyaduna qisadani waa 2 usbuuc reexayso noloshaada oo dhan iyo qoyskaaga oo dhanna ha baaba'o qisadani wiil yar oo dhalinyara oo jaamacadda dhigta ayaa jaamacadda ayuu galay mar uu u soo daalay uu u soo dhibaatooday kadib ayuu jaamacadda galay markuu jaamacadda u ka sii baxayay jaamacadda ka bixitaankaygii sanad baa uga harsan ayaa waxa uu goostay inuu dibadaha u dhoofo Yurub reerkoodu iyagoo ina ogeyn ayuu doonayay inuu Yurub tago waxa uu rabaa inuu zino uu xagga ku soo sameeyo xashiisho iyo khamro inuu maartay uu soo cabo ayuu rabaa aabihii buu ka qarinayaa hooyadii buu ka qarinayaa dadkoodu inay ogaadaan ma doonayo wiilkani arintaasi markay ku soo dhacday fikradaasi inuu dhoofo uu Yurubta u dhoofo uu xumaanta uu soo sameeyo waxa uu ku fikiray sidoo waalidkii way ogaanayaan dhoofkiisa sidoo uga qarin lahaa arintaasi markay ku soo degtay uu isweydiiyey habku been u sameyn lahaa uu isweydiiyey akhiiran waxa uu yidhi waxaan oran aabahay iyo hooyaday meel yar oo tuulo yar oo wadanka kamida ayaan u yar dalxiis tagayaa isaamaxa iyo ogolaada arintiiba waalidkii ku qanciyey waalidkii waa yahay buu yidhi aaba waan daalay jaamacadda waan ku daalnay in badan baan wax dhiganaynay maskaxdaydu nasasha u baahan tahay heysadahan aan tegayaa waxoogaa fasax lacag isii uu marsiiyey aabihii waa yahay buu odaygii waxa uu bilaabay inuu baasaboorkii si hoos ahaan ula soo baxo iyaga oo dadkoogu ayna ogaan kadibna safarkiisii ayuu dhaqaaqay lacagtiina aabihii uu siiyey waxa uu yidhi 2 toddobaad umaan kaa maqnanaya aabbo 2 toddobaad kadib oon iman odaygii sidaasuu ku waafaqay wuu yeelay lacagtiina waa siiyey 2 toddobaad ayuu maqnaanayaa wiilkii reerkoodii wuu sabootiyey wuu baxay mid saaxiibkii ayuu la heshiiyey oo yidhi hoos baad ii kaxaynoo madaarkaad igeyn markaan imanayana adaa i soo celin sidii buu yeelay saaxiibkii buu ugu sheekeeyey oo yidhi ha u sheegin reerka Yurub baan tegayaa xidhiidh wanaagsan haynoo dhexeeyo sidii uu ku baxay madaarkii buu geeyey meeshii bay ku sugeen waxoogaa kadibna diyaaraddii buu raacay magaaladii uu rabay buu ka soo degay uu faraxsan yahay xumaan buu ku faraxsan yahay zine iyo shar buu u yimid inuu meesha inuu ku soo tunto u yimid markii uu meeshii yimid oo hoteelkii uu ku soo degay uu rabay oo jirkii hore u maydhay inuu hore u baxo rabaa caawaba inuu ka faa'iidaysto rabaa waqtiga isla markiiba wuxuu codsaday in khamro loo keeno waxa khamradii baa loo keenay gabadh yar ayaa u keentay aad u qurux badan timo dhaadheer ayaa u keentay qaawan mara yaro khafiifa xidhan waa u soo gashay wuu rumaysan waaye bahal qaawan oo khamradii wadda ingiriisiga aad uma yaqaano waad mahadsan tahay buu ku yidhi wuu sii eegay sii daba dhaqaaqay way soo egto maad ii baahan tahay ku tiri may buu yidhi thank you very much wuu sii dhaqaaqay wuxuu u dhaqaaqay xagga iyo wuxuu is yidhi hoosta tag hoteelka sharaabkii ka soo cab soo tumo markii meeshii hoose u yimid luqada aad uma yaqaano wuu jajabsadaa khamradii baa loo keenay meesha waa boqol tirigo kale midaba ayaa meesha la ciyaarayaa waa la daansayaa waa waxbaa socda meeshii buu soo degay gabadh baa u timid uu u malaynaya tii inay tahay aad u qurux badan tii baa la fadhiisatay waxa uu ku yidhi naa tii markii hore ma tihid waana ahay bay tiri
waad isbeddeshay dharkii umaan beddelay buu ku yidhi ayay ku tiri way u sheegtay waxay ku tiri anuu dadka raaligeliyaa sharaabkan u keenaa waxay u baahan yihiin oo dhan baan siiyaa si hoteelkan qofka uu mar walba u yimaado xaggii buu habeenkii oo dhan kula soo jeeday waxa qolkuu ii raac buu ku yidhi qolkii bay isku raaceen xaggaas ayay 3 saac ilaa 4 saac ayay ku sheekaysanayeen khamradii bay cabbeen way sakhraameen zini iyo xumaantii bay ku dhaceen xaggii buu kala dhacay way agjiibsatay subaxdii markuu toos u naagtii u agjiibta uu argagaxay maada tafcaliina huna xaggan maxaad ka qabanaysa yaa kuu ogolaaday inaad soo geshid markaasay u sheegtoo tiri adiga oo caynkaas oo adiga ii soo dhoweeyey caynka waa u sharax garaan noqow yidhi sharaabkii uu la cabbay xaggiiba haddana sharaab kale u keentay madaxa xanuunay jidhkuu soo yaro maydhay kadib xaggii buu ka sii maysay sharkiisii iyo fasaadkii khamradiibuu sidii u cabbay naagtaasuu la noolaa 2 toddobaad khamraduu cabbayey zinadaasuu ku dhacay xashiishad iyo wax walba soo jeed buu wakhtigiisu ahaa 2 toddobaad buu sidaa ku dhammaystay subaxdii uu noqonayo 2 toddobaad ee u dhammaatay ayuu gabadhii ku dul ooyey isku dul ooyeen idna ku dul ooyday waan kuu soo noqon doonaa yar kadib maalmo mankaa maqnaan iyaduna ku dul ooyday waddankiisiibuu ku soo noqday isaga oo faraxsan sharkii uu ku dhacay ku faraxsan xumaantii ku faraxsan gabadhii quruxda badneed ku faraxsan ayuu yimid saaxiibkii baa madaarka ka soo kaxeeyey baasaboorkii meel iska dhigay hooyadii aabihii u yimid sheeko caadiya oo meeshii waa iska fiicnayd waddankeenu uu qurux badan yahay xaggaas ayuu ka miistay jaamacaddii buu ka baxay ninkii kadib shaquu helay wuu shaqaystay waxa uu yidhi waxaan doonayaa aabba inaan guursado haddeed naagtii iyo hoteelkii maskaxdiisa kama bixin mar walba wuu ku fikiraa si uu isku ilowsiiyo ayaa waxa uu yidhi iska guurso laakiin ogow ilaahay rabbi waa u cadhaysan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala dembigaana waa loo qabanayaa uu ku reexaysanaya xataa qofku hadduu dembi uu ku dhaco waa inuu ka murugoodo dembiga uu maskaxdiisa ilowsiiyo inaad mar walba aad soo ceshatid ma aha waa ka murugood inuu ka murugoodo way qofku isagu waa ku soo ceshanayaa gabadhii oo la hadlaysaa lagu qoslaysaa isagoo xumaantii samaynaya isagoo khamradii cabbaya wixii oo dhan wuu guursaday waxa uu guursaday gabadha in adeerkii u dhalay ayuu guursaday waa isdiyaariyey oo waa diyaargaroobay aroos fiican ayaa loo qabtay 2 bilood kadib ama 3 bilood haweenaydiisii waxay tiri uur baan leeyahay la soco wuu farxay aad buu ugu farxay aabbuu noqon doonaa maalin maalimaha ka mida isagoo oo ku fikiraya markuu aabbo u noqon doono oo baabuurkiisii wata waa islaantiisu markii ay dhalmada bil uga harsan yahay weeyaan ayuu agsidaan galay baabuur kale isjeedheen madaxa ayuu meel ku dhuftay dhakhtarkaa loo qaaday dhakhtarku bil ku jiraa bil kadib haweenaydiisii baa dhakhtarkii iyadana loo qaaday way dhashay wiil bay dhashay dhakhtarkii ayaa loogu geeyey aad buu u farxay markii uu rabo inuu ka soo baxa dhakhtarka ayaa waxyaalo jidhkiisa ayaa ka soo baxay kulayl xumad kulul ayuu yeeshay dhidid fara badan ayuu yeeshay shuban ayaa ku dhacay qufac aan kala go' lahayn ayaa helay waa la baadhay waxaa la ogaaday aidis inuu ku dhacay sidaa ayaa la ogaaday waa naagtii wuxuu ka soo qaaday ogow arrintii meeshii baa laga saaray qol gaara ayaa lagu xareeyey dhakhtarka aabbihii baa xanaaqoo yidhi maxaa wiilkayga qolka gaarka loogu xaraynayaa
waa loo sheego waxaa la yidhi wiilkaaga cudur khatara ku dhacay xaggaasu ku xidhnaanaya waa loo sheegay siidaabaa ku dhaca la yidhi odaygii isagoo oo aad u murugaysan ayuu wiilkiisii soo kortaagay waxa uu ku yidhi ii sheeg runta berigii xaggeed u dhooftay dhul xaaraana u dhooftay khamrada lagu cabo lagu sinaysto miyayna ahayd wuxuu diidaba markii dambe haa buu yidhi wuu u sheegay waxa uu yidhi meeshaas ayaan maaragtay u dhoof khamrana waan cabbay waana sinaystay markuu intaa u sheegay odaygii naxdin isagana dhinac baa baktiyey baaralisey ina batsha rabbika la shadiid qabashada rabbi way adagtay odaygii waa la qaaday dhinac ba isagiina dhakhtarka dhinac laga jiifiyey wiilkii ayaa loo sheegay in haweenaydiisii ay imanayso ay soo booqanayso weli wiilku ma oga inuu xanuunkan uu ku dhacay ma oga haweenaydiisii ayaa meeshii timid waxay ku tiri laqad dalamtanii waad i dulmiday inankaagiina waa dulmiday dibna u arki maysid inankaagii ogow markaasaa waxa uu ku yidhi maxaa dhacay waxay ku tidhi miyaad og tahay xanuunkaaga may buu yidhi sidaas weeyaan bay ku tihi xanuunkaaga aidis baad qabtaa naxdintii meesha uu ku dhacay naftaa ka baxday wuu dhintay isagii iyadii meeshii bay ku xanuunsatay aad bay oyday iyadiina waxaa dhacay waa la kaxeeyey markii ay meesha ku oyday waxoogaa ku xanuunsatay ayaa dhakhtarka loo qaaday waxaa loo sheegay inay iyaduna aidis leedahay sidaa iyada iyo wiilka yarba iyadii naxdin markaas way waalatay naxdintii bay waalatay qol baa lagu xidhay wiilkii yaraana waa laga qaaday waa laga fogeeyey odaygii meesha ayuu u sakaraadayaa dhinac baa bakhtiisan odaygaygii dhimay wiilkii yaraa aidis buu leeyahay meesha iyadii waa tan waalanoo aidis bay qabtaa xaggaas ayadana maarta lagu hayaa haweenayda aabbaheed baa yimid iyo walaalkeed ayaa yimid si iyadii bay dhakhtarka ka soo saareen wiilkeyga bal ha aragto in yar ha aragta bay yidhaahdeen si ay nafteedu u degto muddo ayayna arag wiilkaygii bay ku soo boodday laabtay ku qabatay xoog bay ugu dhegtay naqaskay ku dhejisayba qiiq yarana naftaa ka baxday meesha ayuu ku dhintay waa qisad runa oo dhacday dadkii u taagnaa ee qisadani ka dhacday ayaa qoray oo warinaya wiilkii yaraana xaggaas ayuu ku dhintay iyada oo qoslaysa marna ooyeysa ayuu odaygii doonay inuu ka qaado wiilkii yaraa waxay ku tidhi maata laqad maata wuu dhintay hoo ilmi yaraayo mayda kadibna middi bay ula baxday odaygii wuu u hanjabtay aqalkay kortay waa isku soo xidhay mar waa hadda ayaa xadhi ku xidhay wayse soo sudhay xaggaasa iyadiina naftu kaga baxday qoyskaa iyo reerkaa maxaa baabi'iyey aan isweydiinno waa zinadii uu maalinkii galay uu ku farxay uu mar walba ku soo ceshanayay ayaa way ka daba timid haddaad adigu ilowday ilaahay ma iloobin nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa daharat almacaasi fii ummatii macaasidu markay ummaddayda ay ku soo daahirto ay ku soo baxdo soo muuqato
إلهي سبحانه وتعالى وحكو عام يلا جبيقول عذاب من عنده عذاب اكتسك هذا أيو إلهي سبحانه وتعالى كسوي مركا أي مصيبة سود جيسو ومركا أركتيد فسادك أو صوت ظاهرك حمانتي أو موجسنا يو دي بدأ موجسنا يو أجو مركاسي إلهي وعرض إلهي هدو عرضان أو عرض إلهي أي سودكتو كان وناكسا كان شيخا كان مجرتو جبي آخر لك لسوعية الصحابة بوحي كل هذين يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون مالك مين الدد وناكسن أين كل حسبنين مالك إلهي عذابك وكسو الدجينيو أي معاصد أين إسكي قبني دد وناكسن مين كل حجيرين نبي جوحا ويري بلا ها وكل حجيران دد وناكسن مركز الصحابة وحنا كيف يصنع بأولئك هو محل جارسين أو لجيلي نبي جوحا ويري يصيبهم ما أصاب الناس وحاضتك كل أي كان كل دعي ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان كدبنا الرالي أهانت إلهي يجنديس أي جيل الدونان إنما هاي الدم محول دم بيسمي وذاك اسم محول دم بيسمي ودم بيجي وذاك واحد الوقت إنك دم بيجي أسمي أي الوقت بنايا آخرة ولا كبحي شني وناقي خير بالمهسي جاري لكن الدونك مصيبة هي الدم